الله الرحمن الرحيم. maanta insha Allah ta'ala waxaan ka hadlaynaa mowduuc ku saabsan xabaasuuda iyo sida ay u kala fiican tahay. xabaasuuda waxaa jira noocyo badan oo lagu iibiyo suuqa, laakiin nooca ugu fiican ama nooca fiican inaad qaadatid oo hargabo kala kugu dhaco amba waxyaalo kale ay kugu dhacaan aad ku bogsan kartid. anigu imika waxaa hargab yar bay ku dhacay, waad dareemi kartaan codkayga suu yahay. waxaan soo iibsaday tan waxaa la dhahaa zayd xabad shifaa ama saliida xabatu sawda. marka dad Soomaaliya ayaa soo sameeyay shirkaddan, waxaa la dhahaa Sumaya Herbal Health Care. wadaarta lambarantoodii shirkad iyadoo kuwa Soomaaliya weeyaan, waa la tumaa. marka waxay leedahay nooc weyn, nooc dhexe iyo nooc yar, laakiin noocyadoo dhani waa isku wada mid weeyaan. nooca yar tan baa laga soo nooca weyn tan baa laga yareeyay, ta yarna iyo ta weynna waa isku yoon, waa la kala yareeyay. marka tan oo kale way kulushahay, way u fiican tahay markaad cunto kale xoqadaha kale amba markaad carab ku shubatid kuleyl ba ku jira. kuleylkaas ayaa dilaya bakteeriyada hargabka iyo waxyaalaha la midka ah. marka taas insha Allah ta'ala ayaa diibsan doontaan. hataa dhaashid baa loo isticmaali karaa, wadaadta xaggaas inay ku qoran tahay. waxaa loo isticmaali karaa dhami ama dhaashad. baa loo isticmaali karaa. marka ilaa dhaashidnimada marka loo isticmaalo waxa weeyaan isticmaal dhamid amba dhaashi. marka ilaa dhaashidnimada loo isticmaalaa waxa weeyaan marka xabaasuuda noocaas ayaan maanta idiin soo bandhigayaa, waana ta ugu fiican intaan anu arkay xabaasuudo. waxaa jira xabaasuudyo kale oo meelaha lagu iibiyo, dukaamada lagu iibiyo, laakiin aan fiicnayn. ma fiicna kulaylna maaha, waanad ka dareemsan. mid aan dhow iibsaday dukaan ka iibsaday, markaan saa u dhadhamiyay waan iska tuurayba, wax la afkaaga gelin kartidba maaha. marka noocan oo kale imka Hargeysa kale waxaa iibiya dukaanka la yidhaaho waxsanhay oo kale uu iibiya. dukaamo badan lamid oo kale cilaashado kale waad ka helaysaa. marka noocaas ayaa ugu fiican, noocaasna iibsada. waana nooca la ridqo ee asalka ah ee originalka. lacag badan lama siiyo, waxaa laga siiyey 3,000 oo shilin, adugu 0.5 meelahaas $1 meelahaas ayaa laga siiyey. marka insha Allah ta'ala intaas ayaan maanta idiin soo bandhigayay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.